marka waxay leeyihin xadiidkaasi laba arrimoodba way u daliishadaan gaar ahaan xisbiyiintu waxay idhahdaan qofka marka laga hadlayo xumaantiisa iyo wanaaggiisaba waa in la sheego oo nebigu calayhi salaatu wasalaam shaydaan xumaantiisa iyo wanaaggiisa labadaba u sheegay oo aanay ku camal falayn dadka u sheegay bal shaydaan soo dhaafo dadka ay radinayaan miyay sheegaan wanaagyadooda mar walba waana qaaciido ahlulbidac iyo xisbiyiin mucaasiriin ay u dejiyeen inay ku difaacaan a'immadooda munxarifiinta ah sida xasan ulbanna iyo sayid qutb iyo ragga lamidka ah odhanayaan nimankaasi xasanaad iyo wanaagyo badan bay lahaayeen maxaad u sheegi weydeen wanaagyadooda oo aad khaladkooda u sheegaysaa waxaa la yaab leh in dadka qaarkood ay u daliishadaan in ahlulbidaca lala fadhiisan karo cilmiga laga baran karo oo muxaadaraadka laga dhagaysan karo xadiidkii abi hureyre ee ku saabsanaa markuu nebigu calayhi salatu salaam u diray xoolihii zakaatulfitrida inuu ilaaliyo shaydaanku u yimi isagoo isku soo suureeyey nin dhowr jeer markuu qabtay markii u dambeysay uu yihi nebigaan kuu geynaya abu hureyre uu ku yidhi uhi war intuu u cawday ha ii geyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo shaydaanu nebiga waa ka baqanaya marka waxbaan ku barayaa buu ihi markaad firaashkaaga tagto aayatulkursida akhri shaydaan kuu soo dhowaan maayo shayaadiintu dee iyagiibaa shayaadiinta way yaqaaniin waxa dhibaya ee qofka bani aadamka ka celinaya walaa yazaalu macaka xaafidun min allah ilaahayna cid ku ilaalisa ayuu kuu soo diraya oo shayaadiinta iyo dhibkooda ka ilaalisa waa sii daayay abu hureyre warkiibuu rasuulka u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa gartay waxaa ninka iska soo dhigay abu hureyre u yimi ee raashinka sakaatulfidrida xaday inuu shaydaan ahaa bilwaxyi buu ku gartay waxaanuu ku yihi abu hureyre sadaqaka wa kaduub run buu kuu sheegay waa run qofku markuu sii seexanay aayatulkursida hadduu akriyo inaanu shaydaan usoo dhowaanahayn ilaahayna cid ilaalisa u xil saarayo oo u dirayo wawa kaduub laakiin waa beenaale waa beenawaas wey marka waxay leeyihin xadiidkaasi laba arrimoodba way u daliishadaan gaar ahaan xisbiyiintu arrin koowaad ay u daliishadaan waa qadiyat lmuwaasanaat waxay idhahdaan qofka marka laga hadlayo xumaantiisa iyo wanaaggiisaba waa in la sheego oo nebigu calayhi salaatu wasalaam shaydaan xumaantiisa iyo wanaaggiisa labadaba u sheegay qaacidada ma iltizaami karaan iyagu oo mar kastoo shaydaan ay soo qaadaan shaydaan dadka ay uga digayaan wanaagyo shaydaan uu leeyahy ma sheegayaan waa beentood marka waxaana iyaguba tadbiiqin karin oo aanay ku camal falayn dadka u sheegayan bal shaydaan soo dhaafo dadka ay radinayaan miyay sheegaan wanaagyadooda mar walba abadan qadiyatu qaacidatu lmuwaasanaat bayna alxasanaat wasiyaat waa qaacida baatila weeye waana qaaciido ahlulbidac iyo xisbiyiin mucaasiriin ay u dejiyeen inay ku difaacaan a'immadooda munxarifiinta ah sida xasan ulbanna iyo sayid qutb iyo ragga lamidka ah odhanayaan nimankaasi xasanaad iyo wanaagyo badan bay lahaayeen maxaad u sheegi weydeen wanaagyadooda oo aad khaladkooda u sheegaysaa macnaa wanaagyadooda haddii la sheego sida uri sheekh ibnu baas waxay noqonaysaa dacwa ilayh ida dakarta xasanaatihim faqad dacawta ilayhim buri sheekh ibnu baas ciddii khaldanayd markaad radinayso ujeeddadoo inaad dadka uga digto haddaad markaad radinayso xasanaadkiisi aad sheegto dee dadkii waad ugu yeedhay oo aad tidhaahdo nin baad radinaysaa tusaale ahaan khaarijiya khawaarijta ka mid a markaasa waxaa onaysaa ninkaas waa nin muslima waa nin muwaxida salaada wuu tukadaa bisha ramadaanna wuu soomaa sekada xoolihiisa wuu bixiyaa qur-aanka 3 maalmood mar buu dhameeyaa salaatuleilka ayuu u kacaa waa nin deeqsiya oo sadaqada aada u bixiya waa nin qiiro diineed hayso dadka wanaagga faro xumaanta ka reeba waa tiris wanaag markii dambe aad tiri laakiin waa khaariji oo caqiida khawaarijtu aaminsan yihin dadku maxay odhanayaan war ninka waxaasoo wanaaga aad u sheegtay xabadda yare aad daba dhigtaana uga tegi mayno soo ma wa sidaa uu leeyahay sheekh ibnu baas raximah llah idaa dakarta xasanaatin faqad dacawta ilayh haddaad markaad radinayso wanaagahooda sheegto radinta ujeedadeedu waa maxay waa taxdiiru minhu sooma inaad dadka uga digtaa tira iska ilaaliya diinta iyo idinka xumayna haddaad wanaagyadiisii tiriso taxdiirkii waxaa masaxaya ama daboolaya wanaagyadiisana tirinayso qofka marka loo turjumaynayo taariikhdiisa laga waramayo
taariikhda iyada lama kala reeb lagamana been sheego maa lahu wamaa calayhi baa la sheegaa qofka wuxuu wanaag leeyahy wuxuu xumaan leeyahy marka taariikh laga hadlayo baabu taariikh iyo baabu raddi cala almukhaalifna waa laba baabay kaliya marka la radinayo sayi-aadka iyo xumaanihiisa la sheegayaa si dadku ay isaga ilaaliyaan oo ujeeddadii markaa taxdiirka laga lahaa si loo gaadho waayahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ujeeddadiisuma waxay ahayd inuu muwaasano u sameeyo shaytaankan oo wanaaggiisa iyo xumaantiisa uu isgarab dhigo labadaba uu sheego la hadalkan uu yihi inuu xaq yahay unbuu rasuulku sheegay markuu lahaa sadaqika hadalkan uu yihi aayatul kursi haddaad akhristo shaydaan kuu soo dhowaan mayo ilahay baa ku ilaalinaya inuu run yahay oo xaq yahay laakiin wasfigiisu waa kaduub bimacnaa iska ilaali wey arrinka labaad ee u daliishadaana waxa weyaan inay yidhaahdaan xadiidkaas wuxuu daliilaya in cid walba cilmiga laga qaadan karo oo abu hureyre ibliis baabuu cilmiga ka qaatay arrintaasina waa arrin aan sax ahayn abu hureyre shaydaan buu u rixlaystay oo sheekhuu ka dhigtuu hor fadhiistay cilmiguu ka dhigaystay markanuu u warramayay wuxuu yahayba abu hureyre ma isaga garanayaba ma warka shaydaanka ayuu abu hureyre qaatay maya warka nebiga calayh salaatu wasalaam ayuu qaatay haddaanu nebigu ku odhan lahayn waxa uu kuu sheegay waa run abu hureyre ma qaadan la abadan ma qaateen marka cilmigan cidda uu abu hureyre ka qaatay maa shaydaanka waayo waa nebiga calayh salaatu wasalaam halka mas'ale xadiidkaa loo daliishan kara waxay tahay in la yidhaahdo qofku qof baadil ku sugan ba ha noqdo hadduu doonayo shaydaan ha noqdo wax xaqa oo xaqnimadiisa lagu gartay dariiq saxa hadduu sheego waa la aqbalaya la radin maayo oo laa yuraddu alxaqu likownihi saadiran min ahli baailin oo min saaxibi baailin hadduu saaxibu baail yahay lama aamini karo isaga oo qof isagiiba lumay sidaad u leedahay diin baan ka baranayaan ka qaadanaya iyo hanuun wa huwa daalun isagiibaaba lunsanba faaqidu shay laa yucطii qofku waxaanu ahayn kuma sinay laakiin saaxibu baailku wuxuu sheegay inuu yahay wax xaqa oo jira haddii ariiq saxiixa lagu ogaado sidaa abu hureyreba can ariiqi nebiy uu uga ogaaday waxa uu sheegay inuu xaq ahaa xaqa waa la aqbalaya oo la odhan maayo mar hadduu cid khaldanba ka soo fulay xaq ba ha noqday annagu aqbali mayna la odhan maayo taasi waa baail alxaq waa xaqu an yutabac xaqa sidiisaa loo raacaya mar haddii xaqnimadiisa la garto hebel baa ku camal falay iyo hebel buu madhab u yahay iyo hebel baa sheegay iyo loogama tegi karo xaqa oo looma radin karo waa waajib in la raaco wey taliye su-aal baad weydiinaysa haye tafadal ha ha sax weeye waa anaa taa kuu macnaynaya way ku yaro dhaafto waxaynu nidhi shaydaan iyo cid lunsantoona ila iyagaaba lunsane diin laga dhegaysan maya si aanay kuu lumin taasi waa qodob cad ma horta waa qodob cad sooma ayib qofka khaldani wuxuu sheegay inuu xaq yahay haddii dariiqo kale lagu ogaado si kale mar haddii la ogaado inuu xaq yahay xaqa looga tegi maayo hebeloo khaldan baa sheegay abu hureyre imika warkaa uu shaydaanku u sheegay inuu xaq yahay siduu ku gartay ma inuu shaydaanku sheegay oo qura nebigaa u sheegay calayh salatu wasalaam soo ma nebigaa u sheegay oo ku yihi waxa uu shaydaan kuu sheegay abu hureyrow waa wax sax oo qofka aad kursi akhrista shaydaan usoo dhowaan maayo marka iminka qof ahlubaaila mid khaariji oo le dadku waa wada gaalo oo dhiigooda xalaashanaya de waa qof lunsan inaad u tagtaa tiraa diin baan ka baranayaa oo aan ka dhagaysanayaa kuma banaana laakiin waxbuu sheegay tusaale ahaan oo la maqlay wixiibaa culimadii kale islaamkee saxsanayd ay yidhaahdeen ha khaldanaadee laakiin qodobkaa uu sheegay waa qodob sax tusaale ahaan wuxuu yidhi ninkaas hurdadu weysada way burisaa buuri dee odhan mayso deetana waxaad adilada iyo axaadiiaad ka ogaatay inay hurdadu weysada buriso culimada islaamka saxsanayd baa kuu sheegtay odhan maysid mar hadduu khaarijigu yidhi hurdada weysada burisa
aqbali mayno oran maysid macnaa xaqa waxay xaqnimadiisu caddaato looga tegi maayo qof ahlulbaaila baa ku hadlay gaal baa ku hadlay bidcoolaa ku hadlay shaydaan baa ku hadlay xaqa looga tegi maayo marka labada masalo waa la isku ilaalinaya masalada koowaad oo ah ahlulbaailka inaan loo tegin oo dhigaa loo furin si aanay kuu lumin iyo masalada labaad oo ah wixii xaqnimadiisu ay caddaato cidda sheegaysa cidday doonaysaba ha noqotee inuu xaq yahay in loo raaciyo macadii warkaas waxba dhiman maanta ardaydaad ka mid tahay allah yubaarik fiik waxaynu nidhi waxaynu nidhi marka dadka looga digayo laleeyahay iska ilaaliya wanaagyadiisa dadka loo sheegi maayo si aanay ugu dagsamin intaasaynu nidhi oo haddaad wanaagyadiisii tiriso aad sheegto haddana aad tidhaahda iska ilaaliya wanaagyadiisaa lagu ilaabaya xumaantiisi aad lahayd iska ilaaliya laakiin marka qofka taariikhdiisa laga hadlayo ibliis haddii taarikhdiisa laga hadlayo dee taarikhdiisa o dhan baa la sheegaya waxay qof xun haddii taarikhdiisa laga hadlayo taarikhdiisa o dhan baa la sheegaya allah yubaarik fiik